Wasiirka Wasaaradda Ciyaaraha iyo Isboortiska ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay dil hoygiisa loogu geystay marxuum Mahad Maxamuud Axmed oo ahaa ciyaaryahan hore sidoo kalena ahaa gudoomiyihii isboortiska degmada Waaberi. Wasiirka oo ka tacsiyay geerida xanuunka leh ee ku timaaday marxuumka ayaa waxa uu sheegay in laamaha amniga ay ugu fadhiyaan inay cadaaladda hor keenaan dilaaga oo ay gacanta ku hayaan. waxaan rabaa marka hore inaa lillaah wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillaah wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillaah wa inaa ilayhi raajicuun inaan ka tacsiyeeyo geeridii naxdinta leeda ku timid baxda isboortiska. Marka hore waxaan u tacsiyeynaa geeridii ugu dambeysay maxaa la dhahaa saakay ku timid aroortii gudoomiyaha isboortiska degmada Waaberi oo taasoo sabab u ahayd nin si macnaa xaqdara ah shalay asagoo sooman xilliga afurka gurigiisa ku weeraray halkaas dhaawac uu geystay dhaawacaasna loo geeyay isbitaalka xalay maxaa la dhahaa loola tacaalayay kadibna ajashiis meeshaas ku soo dhamaatay. Gudoomiye Boro waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto nin dhalinyaro ah oo wuxuu ahaa isboortiska degmada Waaberi ama gudoomiyaha isboortiska degmada Waaberi muddo dheerna ahaa wax badanna ka qabtay isu imaatinka bulshada iyo maxaa la dhahaa isdhexgalka bulshada muddana ka shaqeynayay. Waxaan leenahay gudoomiyaha ilaahay ha u naxariisto sidaas si lamid waxaan u tacsiyeynaynaa qoyska iyo qaraabadii iyo guud ahaan bahda isboortiska uu ka geeriyooday gaar ahaan bahda isboortiska gobolka Banaadir. Waxaan leenahay geeri xanuun badan ahayd. Waxaan rabaa ayaduna inaan halkan maxaa la dhahaa fariin oga diro hay'adaha amniga waa ku mahadsanyihiin horta inay gacan ku dhiglihii la soo qabtay sida la ii sheegana uu hadda ku jiro gacanta hay'adaha dambe baarista. Waxaan rabaa aan codsanaynaa in sida u dhaqsiyaha badan loogu wareejiyo hay'adaha garsoorka ama cadaaladda si loo waafajiyo ama loo maransiiyo waxa uu mudan yahay looga mataqaanaa cadaalad gudo gacan ku dhiglaha ninka dhalinyarada ah mustaqbalka lahaa dalkiisa iyo ummaddiisa u shaqeynayay sida xaqdarrada ah ku sababsaday gacantiisa ugu baxay. Waxaan rabaa inaan hay'adaha cadaaladana dhaho cadaaladda u soo dedejiya maadaama gacan ku dhiglaha uu fal argagax ama mataqaanaa mustaqbalkii dhalinyarada ama degmada Waaberi oo indhaha ka tiray. Waxaan codsanaynaa in loo soo dedejiyo cadaaladda. Intaas kadibna waxaan rabaa haddana sidaas si lamid ah ina ayadu asaguna u tacsiyeeyo Mahdi Ducaqabe oo ahaa asagana wiilkii Allah u naxariistay marxuumad wasiirad Khadiija Maxamed Diiriye asaguna ahaa nin sportis ah asaguna ajashiisa xalay ilaahay mataqaanaa waqtiga inta ku soo ekeysiyay sida maxay toole la ii sheegana shalay kamid ahaa dhalinyaradii ka qayb gashay ama ku ciyaaraysay kubadda tartanka isdhexgalka kaabka Ramadaanka ee ka socda degmooyinka shalay galab ku soo dheelay degmada Warta Nabadda xalay markuu afur kadibna asaga xanuun yar ku soo boday kadibna uu halka ajashiisa asagana waxaan leenahay ilaahay u naxariisto Mahdi nin dhalinyaro firfircoon baha sports uu ahaa asagana waxaan ka tacsiyeynaynaa guud ahaan qoyska qaraabada inta uu ka baxay reerka uu ka baxay tacsidiisa asagana waxaan la leenahay waa la murugoonaynaa ilaahay u naxariisto. Guud ahaan waxaan uga tacsiyeynaynaa labada dhalinyaro mustaqbalka wanaagsan ku lahaa bahda isboortiska guud ahaan bahda isboortiska dalkan uga tacsiyeynaynaa meel walba ay joogaan gudaha iyo dibadba. Waxaan leenahay inaa lillaah wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillaah wa inaa ilayhi raajicuun. idinkuna waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maxamed Salaad, Hon Cable TV, magaalada Muqdisho.